canow wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a iiraan oo qiratay in la dilay cali larijani oo ahaa hogaankii amniyaadka iyo sida oo kale suleymaani oo ahaa taliyihii ugu sareeyey ee ciidamada bisiij la yidhaahdo ee markaasi ay ku faanto dalkaasi iiraan iyo dagaalka bariga dhexe oo hadda la sheegayo iiraan in ay markaasi xaaladu ku xun tahay waayo waxaa la yidhi wadanka shacabkiisa ayaa hadda iyagii markaasi kala qaybsan oo laga dhex adeeganaya madaxdii iiraan oo markaasi hadda tarab loo leynayo taasi oo markaasi hadda dagaalka ka socda bariga dhexe u dhexeeya markaasi maraykanka iyo israa'iil oo dhinacaya iiraan la sheegay markaasi inay u muuqato iiraaniyiintu iyagu inay isa soo gebagabaynayaan iyo dhinaca kale waxaan kusoo qaadanayna barnaamijka fadhiidka Soomaaliya oo lagu kala yaacay iyo maamulka koonfur galbeed oo sheegay gebi ahaanba inay ka baxeen dowladda markaasi fadhiidka ay xasan sheekh markaasi hogaamiyo waxaa la sheegay inay hadda gooni uga goosteen maamulkooga oo markaa ay hadda ka madax bannaan yihiin dowladda fadhiidka Soomaaliya ayaa hadda la sheegaya in ay markaasi maalmood ka dambaysa si kala burburayso oo intii yareeyay markaasi xasan sheekh u joogi jirtay hadda gebi ahaanba iyadii markaasi kala yaacday kadib markii uu bilaabay dagaal aan markaasi waxba ugu caana cabin oo uu Somaliland ku soo qaaday ayaa gudihiisii markaasi hadda maamul goboleedyadiisii la sheegay inay tusbax furtay noqdeen Jubbaland iyo Puntland hadda waxa ku biirtay koonfur galbeed baa la yidhi iyo dhinaca kale waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka ka bariga dhexe oo hadda keenay in gacankii hormuus uu xidhmo iyo imaaraadkii qatar oo markaa gacan cusub ka sameynaya xadka u dhexeeya markaasi labadaasi dal gaar ahaan inta badanna imaaraadka markaa dubay imaaradaasi ilaa iyo laga soo gaaraya markaa gacanka cadmeed halkaasi ayaa la sheegay in laga soo jeexayo marinbadeed ama gacan cusub kaasi oo markaa gacanka cadmeed ama gacanka berbere toos ugu soo dhici doona iyo sidoo oo kale hadda dagaalkan ka socda markaasi bariga dhexe oo la sheegay in ay jamhuuriyadda Somaliland hadda faa'iido weyn ay hadda iyadu ka heshay oo sumcadeedu kor u kacday waxaa la arkay dad reer Somaliland ah oo markaasi ka qayb galay mudaharaad ballaaran oo markaa Mareykanka ka socday kaasi oo markaa lagu taageersanaa Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil iyo madaxweyne Trump howlgalka iyo dagaalka ay ka wadaan markaasi Iiraan halkaasi oo markaa calanka Mareykanka iyo ka Israa'iil oo la lulay calanka Somaliland muwaadiniin u dhashay oo reer Somaliland ah oo lulaya iyaguna ka qayb galaya mudaharaadkaasi taageerada loogu muujinayay Trump iyo Netanyahu iyo sidoo kale hadda Somaliland oo ay ku soo wajahan yihiin in ka badan 15 markab oo markaa hadda ay leeyihiin 8 wadan oo markaa hadda doonaya in ay saldhigyo military iyo fadhiisimo ka samaystaan xeebta 850 kiiloomitir ee jamhuuriyadda Somaliland iyadoo muhiimadda hadda markaasi ay Somaliland u leedahay istaraatiiji inay tahay dhulkeeda iyo badeeduba ay caalamka u muuqatay kadib markii hadda Iiraan dagaalkaasi ay bilowday iyo sidoo oo kale ay markaa hadda xidhay gacankii hormuus oo markaa miinooyin badan ay dhigtay waxaana hadda Iiraan sidoo kale ku hanjabtay in ay markaa xiri doonto badda casna saa darteed wadamada waaweyn ee caalamka in ka badan 8 wadan ilaa 10 ayaa hadda la sheegaya in ay doonayaan markaa in ay maraakiibtooda iyo alaabaha shixnadaha u maraya gacanka cadmeed ama gacanka berbere ilaa iyo badda cas in ay markaa halka ka ilaashanaan danahooda iyadoo fadhiisimo cusub iyo markaa saldhigyo in ay samaystaan doonaya kaasi oo hadda xeebaha Somaliland inay fadhiisimo ka samaystaan la filayo maraakiibta soo qulqulaysa iyo faahfaahintooda ayaan idin ayaa qodobada iyo qodobo kale ayaan kusoo qaadanayna barnaamijka ku soo dhowaada aan ku bilowno barnaamijka waxaa jirta hadda dagaalkan ka socda bariga dhexe ayaa saameyntiisa wata siyaasad juqraafiyeedka iyo nidaamka markaasi caalamka isku xidhan yahayna isbedel weyn ku keeni doona waxaana hadda wadamada aadka uga faa'iidi doona
ka mida jamhuuriyadda somalilan oo muhiimadda ay u leedahay isku socodka caalamka iyo alaabaha markaasi u kala gooshaya ilaa iyo yurub iyo eshiyaba ay hadda somalilan istaraatiijig tahay oo wadamo badan ay arkeen hadda muhiimadda ay u leedahay. Wadamada markiiba ku baraarugsanaa ee hadda xiriirka dhow la yeeshay waxaa ka mid ah Maraykanka oo hadda marka base military xitaa somalilan ay ugu baaqday aqoonsiga marka somalilan ay kaga bedelanayso iyo sidoo kale khayraadka iyo macdanta somalilan ay leedahay oo Maraykanku markaa hadda ka iibsan doono maalgashina ku samayn doono. Haddaba waxaa jira wadamo badan oo iyaguna hadda soo baraarugay oo ogaaday aqoonsigii Israel ay siisay somalilan 26 December sanadkii 2025 ayaa indhaha caalamka u kala furay, ogaadeyna markaasi Israel in wadanka ay aqoonsatay ay yahay markaasi mid muhiimadiisa wata oo yacni xitaa nidaamka dowladnimo iyo xitaa shacabka labada dal sida ay markaasi aad iskugu booliyoobeen wadan muslim oo haddana Israel oo lagu xaman jiray wadamo muslimiinta inay islaayaan haddana aad markaa taageero weyn dadkii reer Somaliland u muujiyeen una soo dhaweeyeen markaa aqoonsiga Israel siisay iyo dal ahaanba taageero weyn ay labada dal isku muujiyeen ayaa noqotay markaa la ogaaday inay Somaliland tahay wadan marka xadaariyada uu ku shaqeynayo iyo yacni dadkiisa sida ay xadaariyiintu yihiin ee aan ahayn dad nacayb dad kala u qaba iyo moogtay dad cunsuriyiin iyo dad waxyaabo kale aaminsan aan ahayn wadan lala shaqeyn karo oo nabada waxa uu sameysay markaasi howlahaasi oo dhan soo jiidasho waxaana keentay hadda in ka badan 8 dal ay doonayaan Somaliland in ay xiriir la yeeshaan oo markaasi waliba goobta istaraatiijiga Somaliland ku taalana ay markaasi aad soo jiidasho u sameynayso. Waxaa hadda markaasi la sheegay inay u soo ruqaansadeen markaasi xeebaha Somaliland in ka badan 15 markab oo ay leeyihiin dalal 8 dal kor u dhaafaya. Wadamadaasi haddaan idiin tiriyo magacyadooda waxaa hadda ka mid ah isbahaysiga horta lix geesoodka ee markaasi intan dagaalkan Iran bilaabay ka hor maalmihii aqoonsiga Soomaaliya lagu dhawaaqay kadib Israel isbahaysiga ay sameysay hexagonalka ama lix geesoodka wadamadaasi ayaa iyagu ku jira oo ka mid tahay Hindiya, Greega, Imaaraadka iyo markaa wadan kale oo sheegay in Afrika ku yaalo oo Ethiopia loo malaynayo kaasi oo hadda markaasi wadamadaasi lix geesoodka ay Somaliland lix ku tahay iyo sidoo kale Maraykanka iyo moogtay wadamo ilaa 10 ah ayaa la filayaa markaasi in ay maraakiibtaasi iyagu ay leeyihiin oo danahooda iyo markaasi alaabaha u kala gooshaya markaa Yurub ilaa iyo Asia halka gacanka berbera ilaa iyo markaa baabul mandabka sii maraya ay danahooda ka ilaashanayaan. Somaliland ayaa faa'iidada ugu jirta waxay noqonaysaa in ay markaasi saldhigyo badan oo ay wadamo badan ka kirayso ay markaasi hadda chance u heli doonto oo xagga dakhliga badan ka soo kordhi doono aqoonsi markaasi ay kaga bedelanayso wadan walba inuu miiska soo saaro sida Maraykanka shuruuda loogu xiray in haddii uu doonayo saldhig military ku yeesho markaa Somaliland aqoonsi kaga bedelanayo ayaa sidaasi la mid ah 8 dalba ay hadda Somaliland hordhigaysaa in ay markaasi aqoonsi buuxa ku dhawaaqaan intaanay xiriir la yeelanin dalka Somaliland taa laftarkeedu waa faa'iido weyn ayaa la leeyahay marka faa'iido dhaqaale iyo mid ma garatay aqoonsi iyo isdhexgal badan oo ay Somaliland hadda la sameynayso wadamada caalamka ayaa la filayaa markaasi hadda inay bilaamayaan maraakiibtina hadda waabay soo socdaan ayay wararka qaarkood ay sheegayaan oo way ku soo wajahan yihiin xeebaha Somaliland iyadoo oo markaasi ay wadamadaasi ilaashanayaan danahooda oo in ay Iran ama canaasiirta Xuutiyiinta markaasi badda cas joogta inaanay carqaladaynin oo aanay gacanka cadmeed ama gacanka berbera iyo badda cas inay xidhaan ayaa laga hortegayaa saa darteed ayaa wadan walba danihiisa inuu halkaa ka ilaashado uu doonayaa Somaliland markaa in ay fariisin ka samaystaan ayaa waajib ku noqonaysa. waa barnaamijkeena intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.